gurman lahaa waxaa loo baahan yahay dhalinyarada taariikhda ku leh Soomaaliya sida SYL oo kaleento ayaa loo baahan yahay oo ka saarayso dhibkii oo ah wadaniyada qadiyada iyo dhammaan danta guud oo ay ka tagaan qabyaalad hadaba hadii kale oo aad iska dhamisaan jansiga waxa idin qabsanayo 20 sano oo dagaal ah iyo abaarihii baana ee soo maray oo kaleento waayo cadaaladda Ilaahay wuxuu ogol yahay daacadnimo iyo cadaalad ma ogolo Allah subhanahu wa ta'ala man doonayo inay bil aadanka isdulmiyaan marka qof walba Soomaali ah gaar ahaan haweenka iyo shacabka fariinta uu u soo jeedinayo wadani TV waxay tahay inay raadiyaan walaalayaasheeda qaaliga ahi in ay ka fikiraan dadyoga ee baarlamaanka u keensan doona doorashada ku soo fool leh sidii aad ogsantiin wadani TV kama hadlo waxa taagan waxaan soo gudbinaa wax alaala waxa ku soo fool leh waxa idin ku soo fool leh maalin qaali ah oo aad codkiina ku aarsan doontaan cid aad ku keentaana aad keensanaysaan walaalayaal ka fikir qof walba dhibaatada walaalada abaaraha iyo dhibka haysto oo shakhsi kula dhashay ah ka fikir walba danta guud ka fikir nin walba in qabiil kaliya oo san maamul qaban karin xukun noqon karin waxaan nahay 800 milyan waxaana dhulka khayraadka ku jira Ilaahay ku manaystana loogu talagalay 300 bilyan oo qof in ka badan inay ku noolaan karto dadka noocaas inteedii keenay doonaa ayaa isweydiin mudan waxa qasab noqonayso in adduunka dhan ay ku noolaadaan Soomaaliya haddii nabad ay gasho oo khayraadka dabiiciga la soo saaro dawlad daacad ah oo noocaas ahna la keeno shaki kuma jiraan 10 sano gudahood inay noqon doonto meel ay caalamka oo dhan dhaqaalaheeda lagu xisaabtamo oo noqoto meel taariikhi ah oo Soomaaliya noqoto meelaha sida Sacuudiga oo kaleenta ah qof kasto shakhsi Soomaaliyeedna guri isaga uu leeyahay iyo bil walba uu heli karo in ka badan $6,000 oo isaga soo gasho waayo waxa lagu xisaabaa khayraadka dabiiciga Ilaahay ku manaystay Soomaaliya mid loogu talagalay caalamka oo dhan inay ku noolaan karaan waa taas weeyo waxa ay wali dalalka shisheeye lugta ay kula jiraan siyaasad ahaan Soomaaliya oo ay rabin marna inay ka baxaan walaalayaashayda dhammaan dhalinta Soomaaliyeed dhalinyarada dhamaantood wax mar walba ugu baaqaya in ay muujiyaan wadaniyad iyo qadiyad hadaba iska saara oo ka taga qabyaalada danta guud ayaa idin soo socoto waxaan idin kaga tageynaa oo idin ku dhameystirnaa heestii dadka iyagu
dadka iyagoo isku duubiba dan lagu gaaraa daawasho wanaagsan oo wacan oo wadani TV annagana kama hadalno waxaas dhacay waxa soo socda ayaan umada tusnaa sad hore nagu barateen waxaan hadda ay ku jirtaana waxaan idin tusnay ka hor oo idinkaga dhignay 2 sano haatana sanada 2013 oo u dhixiyay sanada Soomaaliya iyo nabadda sanada Soomaaliya ayaan rabaa inaan haweenka iyo carruurta iyo dhalinyarada ugu digo in aysan ka faa'iideystaan jaasigooda Allah subhanahu wa ta'ala uu soo wajahay ee xaqoodii laga galay oo aysan fiirinin qabiil iyo qabyaalad iyo wax daran ee dibdhacayno keenay waa mahadsantihiin doorashada oo aan leeyahay yaani lama jahabaabinin oo dhammaantiin nin walba oo dhalinyaro ama gabar iyo wiil iyo hooyo intaba ha ka doonaana shacabkii dulmanaa qalbiga qof alla qofkii Soomaalinimo oo wax u qabanayo mahadsanidin